Wafdi ka socda Wasaarada Arimaha Gudaha ee waddankani Kenya ayaa gaaray magaalada Garissa iyaga oo kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulanka ayaa sidoo kale la qorsheynayay in lagu soo bandhigo tirada dadka ku soo baxay faraha qaxootiga ee sanad walba ka faa'iideysta dalka dibadiisa fursadaha loogu qaado dadka qaxootiga ah ee ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dalkani Kenya. Warbixin arrintan ku saabsan Cabdilaan Dalmar ayaa inooga soo diray Garissa. Wafdi ballaaran oo ka socday xafiiska Arimaha Gudaha Dr. Fred Matiangi ayaa soo gaaray magaalada Garissa waxaana safarka ku wehelinayay qaar ka mid ah xildhibaanada ismaamulka Garissa iyo Wajeer. Kulan saacado qaatay oo ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu soo bandhigay inta ruux ee ka faa'iideysatay fursadii sanadkii hore la siiyay dadka gobolka Waqooyi Bari ee galay faraha qaxootiga. Inkastoo in badan aysan fursad u helin inay iska bixiyaan faraha oo waqtigu ka dhamaaday ayaa dhanka kale madaxda gobolka Waqooyi Bari waxay dawladda ka dalbadeen in dib loo bilaabo waana laga aqbalay sida ay sheegeen xildhibaanadii shirka ka hadlay. faraha qaxootiga sida la socotaan dad badan oo Soomaali ah oo wadani ah oo Kenyaan ah ayaa daruufo jirta awgeed u galeen qaxootiga oo marka waxay noqdeen dad aan meel la haysan soo maahan sanadka hore waxaad xasuustaan CS ka horeeyay His Excellency Dado oo lentutu baan inta sliimaanay dhammaan waxa umana madaxda Garissa wada joogeen governor-ga joogay deputy governor-ga joogay xildhibaaniinta dhan baa joogeen waxaan markaa iyada daahfurnay in uu bilowdo nidaamkii lagaga bixin lahaa dadka Soomaalida ee faraha qaxootiga alxamdulillah maanta wuxuu soo socotay arrintii inkastoo ay radahday laakiin waxaan rabnaa inaan idin sheegno oo idin xaqiijino dad ku dhow Garissa kali markii la xisaabo 10500 in ka badan ayaa hadda maxay ahayd arrintoodii diyaar ay noqotay oo aan rajaynaynaa muddo dhow inuu u soo baxo sharcigi ay wadanka ku mari lahaayeen taasna waxaan u maleynaa waa guul weyn midda labaad waxaan codsi geysanay dad badan oo waqtiga iyada ee duurka ku jiray oo aan fursad u helin in ay ka qayb galaan farabixintii soo ma jiraan dadka isagana waxaan ka codsanay dawladda oo wasiirka ay u hogaaminayo in muddo dheeraad ee nala siiyo si mar labaad loo sameeyo maxay ahayd arrintii farabixinta marka waxaan rabnaa in dadku si sheegtaan in hawsha ay soo socoto oo dadka meelaha badan ku maqan waa la sheegi doonaa idaacadaha laga sheegi doonaa ay isdiyaariyaan sidoo kale waxaa loogu baaqay in dadka galay kaydka UN-ta ay mar kale ka faa'iideystaan markii dib loo bilaabo faraka bixinta si bari ka maalin aysan dhibaato dhanka sharciga ah aysan ula kulmin waxaan rabnaa caruurta faraha galeen waalidiintooda kuwa sharciga qabaan kuwa sharciga aan lahayn kuwa aan hadda ka hor isdiiwaan gelin fursadda markii la furo qof kastaba inuu ka qayb qaato si ay ku helaan haddii aysan dhicin waxa dhici doontaa hadhow hadduu sharciga ka dhumo ama u baahato baasaboor ama ilmihii uu qaangaaro inuusan helin kibaande waxaa jirta waxa la dhaho huduma number nafteeda waa la afjirahayaa kol dhow marka waxaan rabnaa intaan la soo afjarin in arrinta laga faa'iisto dadaal badan oo madaxda gobolka Waqooyi Bari ay sameeyeen sanadadii la soo dhaafay ayaa suurta gelisay in maanta 10,000 oo qof oo Kenyaan ah laga bixiyo faraha qaxootiga taasoo ay hore u galeen sababo kala duwan awgeed. Cabdilaan Dalmar wararka RTN magaalada Garissa.